jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxa ay xaflad soo dhaweyn iyo mahadcelin ah u sameeyeen Cabdiqaadir Gabayre Faarax oo isagu ah muwaadin Soomaaliyeed oo wax badan u soo qabtay shacabka Soomaaliyeed. Jaaliyadii halkaas ku soo dhaweysay ayaa sidoo kale waxa ay uga mahadceliyeen Cabdiqaadir Gabayre Faarax sida uu ugu hawan yahay inuu dalkiisa u hormariyo isla markaana uga qayb qaato horumarka uu ku socdo. Cabdiqaadir Faarax Gabayre ku soo dhawow magaalada London waa ku soo dhaweynaynaa waana ka gudoomaynaa bilad sharafka aad noo keentay haddaanaha ummadda Soomaaliyeed. Cabdiqaadir ku soo dhawow jaariyadda Soomaaliyeed ee UK waan ku soo dhaweynaynaa waana aad maasantaa sharafta aad noo soo hoyday. walaalkan Cabdiqaadir waxaan leenahay waa soo dhawow waqooyiga London ku soo dhawow waanu kugu hambalyeynaa bilada iyo magaalada geesinimada iyo shahaadada aad heshay waa sharaf dhamaanteen oo soo wada hoyatay. waxyaabaha kale oo Cabdiqaadir lagu xasuusto waxa kamid ah sida quruxda badan oo dalkeenu hooyo oo u galiyay jawigiisa arrimaha bulshada oo ceelashii iskuuladii isbitaaladii oo waxyaabo aan la soo koobi karin oo nooga sameeyay. Cabdiqaadir Gabayre aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynaa haweenku way dhiban yihiin sida quruxda badan ah haweenka iyo caruurtaba aad noo caawisay. Thank you so much aan ku leenahay. sidoo kale waxa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay Cabdiqaadir Gabayre Faarax oo isagu uga mahadceliyay jaaliyadii Soomaaliyeed ee halkaasi xafladda soo dhaweynta ugu sameysay. Cabdiqaadir Gabayre Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii uu ka soo qabtay gudaha dalka Soomaaliya isla markaana uu hadda jecel yahay inuu mar labaad ka qabto. waxaan si aad ugu mahadnaqayaa sharaf leh wanaag leh fikradda ah in kulankan la abaabulo qofkii keenay qofkii wax ka qayb galay qofkii wax ku daray qof alla qofkii ka soo qayb galay qofkii gartay inuu xitaa taageero uu farxadaas ila qaybsado horta aad u mahadsan yihiin sharafna bantii hay'adda iyo Cabdiqaadir Gabayre oo iswata maxay Soomaaliya ka qabteen maxay Soomaaliya geeyeen ka xusimaayo ceel iyo iskuul iyo uma arko wax waaweyn hay'addan iyo hoggaankeedu maanta waxay ka soo dhameeyeen saddex mashruuc siiba labo yani saddexdan labo waaweyn waa koow magaalada Muqdisho caasimadda oo maskaxdeena ah oo 2 milyan iyo bar qof ay ku nooshahay biyo gelinteeda iyo canalizationka ama biyo mareenka iyo waxaan loo yaqaano sewage oo ah in musqusha iyo waxa ku jira laga saaro magaalada ay noqoto magaalo nadiif ah waa mashruuc waligeed Soomaaliya ay soo marin hadda kor kulli odayaashu way joogaan inaan maanta aan sanadkan ka bilaabayno dhismaheeda waa koow waxaan wada hadal kula jirnaa Somali Airlines in la soo celiyo saddex diyaaradood oo u diyaarinay intaas markaas ku darto waa qorshaha iyo qodobada waxa inta dheer in fikradda aan diyaarinay mashruuca ilaa 2020ka sidii Muqdisho oo kaanaysay Gaalkacyo Garowe Hargeysa Kismaayo meel walba mashruucan hadda biyaha kale magaalo walba oo ay ku nool yihiin wax konton kun qof ka badan inaanu ka sameeyno oo aan iyada ka soo dhameynay. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaas ugu sameysay xafladii soo dhaweynta ahayd ayaa waxa ay bilad sharafyo ku gudoonsiiyeen Cabdiqaadir Gabayre Faarax isla markaana uga mahadceliyeen waxqabadkiisa waxa ayna kula dardaarmeen inuu horay u sii wado dadaalka uu ugu jiro inuu ku hormariyo dalkiisa. Yuusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.